بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا جواه محمود قرن عثمان وجوجا مقالة هرقيسة وحنا كم ده من برا شركة One Coin One Life إن شاء الله ما أنت وحنا شغال اللي وده جوا 10 كيلو بعد أنا كده ياريو شركة أما كومباني جن One Coin One Life لده بل إن شاء الله ما أنت وحنا تب ليجا عصدي إن عن شرحات كوبان كبحية One Coin One Life ومحيسس ده لوجا فايدة صار من نقطة One Coin One Life waa company ka dhisan qaaradda Yurub gaar ahaan laga leeyahay waddanka Bulgaria waxa company-gan aasaastay oo ikhtiraacday gabar la yiraahdo Dr. Ruja Ignatova oo Bulgaariana waxbarasho ahaan waxay ka soo baxday jaamacadda Oxford sharciga iyo dhaqaalaha ay ku takhasustay oo baratay company-gan bayna aasaastay kadib company-gan haddaba One Coin One Life sidee looga faa'iidayaa maxaa laga helayaa كومبانيgan sida halkaad ku aragtaan magaciisu waa One Coin One Life One Coin waa company laftigiisa lacagta uu soo saaro oo ay dadku ay gataan oo ah waxa faa'iido laga helayo One Coin baa la dhahaa One Life oo ah sawirka xaga midigta xiga waa One Life oo waxa weeye waa halkay dadka company-gan maal gashaday ee wax gashaday wax ka iibsaday halkay isugu yimaadaan ayaa la yiraahdaa One Life company-gan waxa la aasaasay 2014 bishii September ilaa haddana dadkii galay waxay ka faa'iideen lacag aan caadi ahayn oo milyaneer maanta marayaan marka waa chance maanta qof walba u bannaan dad badan oo Soomaali way ka faa'iideysteen insha Allah waxaan jeclahay idinku inaad raadisaan oo fahamtaan ana intii karaankayga waan idin la wadaagayaa bal waxaynu eeginaa company-gan ma jiraan company-gan One Coin waxaan eegaynaa habka looga faa'iido horta marka koobaad company-gan qofku markuu doonayo inuu ka mid noqdo uu ka faa'iido marka koobaad waa inuu ka mid noqdaa oo One Coin One Life oo member ka noqdaa company-gan sidee baad uga mid noqonaysaa shardiga koobaad waxa waa inaad company-gan package ka iibsataa package-ka laga iibsanayaa waa package waxbarasho kaasoo ay ku dhex jiraan token ama dhibcahaasoo lagu siinayo lacag One Coin la dhaho One Coin waa lacagta uu company-ga soo saaro waa lacag sida saadka maanta aad garanaysaan saadka mobilada lagu isticmaalo online-ka waa lacag caynkaas ah package markaad iibsato waxa lagu siinayaa tokens baa lagu raacinayaa waxbarashana lagu siiyay tokensna waa lagu siinayaa tokenska waxa loo bedelayaa One Coin company-gan lacagta uu soo saaraa waa waxa la yiraahdaa One Coin waa lacag cryptocurrency ama digital money 2015kii markii company-gan suuqa caadi u yimi dadku ay wax ka iibsadeen halkii One Coin waxa uu mareysay €0.5 maanta wax maraya €25 qofkii markii gashaday $880 waqtiga maanta wuxuu faa'iiday lacag aan caadi ahayn waa $10 bal markaa xagga dambe insha Allah sawirka dambe ku tusi doonaa bal laakiin waxaan la wadaagayaa sawirkan company-gan ka horeeyay oo la oran jiray Bitcoin success story baa halka ku qoran company-gan waxa la aasaasay 2009 waxaanu ahaa first cryptocurrency-gii ugu horeeyay ee caalamiga maxay la sameeyay ee soo saaray lacag digital money oo yacni saadka company-gan markii la aasaasay dadka 95% way ka yaaceen waxay dhahaan waa scam waa tuug waa nala dhacaya waxa uu siinaya halkii Bitcoin waxa la siinayay $0.1 ayaa lagu iibsanayay dadkii way iskaga yaaceen laakiin dadkii ka faa'iideeyay kamid ahaa bal wiilka yar inuu eegno wiilka yar wuxuu kamid ahaa dad fuqaraabo kamid ahaa oo degan waddankaasi Norway kadib $27 ahaa waxa ugu yar Bitcoin lagu darsan karay ayuu ku darsaday oo uu gashaday $27 waxay u geeyeen lacag ku dhow 1000 Bitcoin bay u gooyeen waayo halkii Bitcoin muxuu ahaa 0.1 buu ahaa kadib markuu $27 uu gashaday uu iskaga tagay 3 sano ka bacdi baa suuqa company-ga la keenayay oo maanta hadaad imika beer qodo aad midho ku beerto waad garanaysaa waqtiga ay suuqa midhaha simanayaan sidoo kale company-gan ninkii sameeyay Satoshi baa la oran jiray wuxuu ugu talagalay Bitcoin lacagta dadkaas markay gataan inay 2013 ay suuqa keenaan oo iibsadaan oo ay sariftaan $27 buu gashaday $27 waxa uu jiraan 1000 Bitcoin lacag ku dhow 1000 Bitcoin 3 sano ka bacdi buu ka yaraa maqlay lacag Bitcoin la dhahaa suuqi lagu kala sarifanayaa oo la kala gadanayaa oo maxay ahayd exchange-da u socdaa iyo isku bedelkeedii kadib account-kiisii buu galay account-kiisii markuu galay
kun bitcoin buu ugu jiro arkay kunkii bitcoin buu sarifay halkii bitcoin ba muxuu ku sarifta $1,203 buu ku sarifto lacaga bal haddaba kun ugu dhufo dee lacagan qayrul xaduf wiilka yar faa'iiday $27 buu gashaday halka waad ku aragtaan taan idin tuso okay halka lacagta ku qoran aan idin calaamadiyay waa $886,000 buu ninkaasi faa'iiday $27 uu gashaday haddaba waay maanta ayaynu inagu haysanaa chance ka lamida oo maxaynu haysanaa company baynu haysanaa la yiraahdo OneCoin oo asagu legal oo cid dale la garanayo meeshuu uga soo jeedo la garanayo waxaad gashataan waxaad gacantaada ku haysato yahay company-gan habka looga mid noqdaa baakishada halka aad ku aragteen ma la gataa halka 6 baakij ba ka muuqda sawir hayr shilling oo kala weeg company-ga kaas laga gataa ka ugu yar waa 750 ayaa ugu yar aad ku gadanaysaa 750 ka waxaad helaysaa 8,000 oo token 8,000 oo token waxay ku noqonayaan 46 OneCoin bay ku noqonayaan 46 OneCoin oo 8 October marka la gaaro aad halkii OneCoin ba ku sarifanayso $1,000 bal 46 markaad $1,000 ku dhufato mise $46,000 $750 inta ku faa'iideysaa insha Allah waan yarti tijii sharaxaada company-gan waa company aad iyo aad faa'iido badan u leh Soomaali badan baa ku jirta maanta oo heer ka gaaray malaayiin lacagna ka shaqeystay insha Allah markaa in badan idinku raadiya Google iyo Facebook bay dadku wada isticmaalaan YouTube hadaad ku wada qortaan wada helisan waxa soo xoga OneCoin One Life hadaad ku qorto iyadoo af Soomaali lagu sharaxay helisan inta soo qof kale sharaxayaan insha Allah isku daya wax cusub mar walba keena dadaalkiina ka mid dhaliya dadka aad arkaysaan waa dad Soomaali oo horumar ka gaaray ninka dhexe sawirkiisu gobada ku jira Said Cabdi Balada wallahi beenid ma sheegayo 7 account ma shirkadda ka furtay buu hal account oo kamid maalin tusay $20,000 baa isniin walba u soo dhacay lacagta inta laga company-ga laga faa'iidaa waana meel laga shaqeysto ganacsiga insha Allah ka fikira waa chance ilaa 8 October banaan ee sanadkan oo dadku ay ku biiri karaan kana mid noqon karaan dadka kamid ah company-gan ee wax gashaday ee ka faa'iiday waa 3,356,498 qof ba kamid ah oo Soomaalida ku jirtaan 10,000 ay kor u dhaaftay aad iyo aad bad mahadsantihiin wixii su'aal iyo wixii kale faahfaahinaad qabtaan iyo caawimaadba nambarada wad nagala soo xiriiri kartaan WhatsApp tay iyo dad call intaba wixii su'aalaad qabtaan kan ugu soo hagaajiya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh